halkan waa degmada Awdheegle waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka Shabeellaha Hoose. qiyaas ahaan 75 kiiloomitir ayay dhanka koonfur ka xigtaa caasimadda Soomaaliya. federaal ahaan waxay hoos tagtaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. in ku dhow 10 sano ayay ka arriminayeen Al-Shabaab oo weli maamulaya deegaanada qaar ee degmada. balse dowladda Soomaaliya oo muhiim u arkaysa istiraatiijiyadda degmadan ayay awood ciidan u adeegsatay qabashada Awdheegle, iyadoo ay iskugu geysay laba urur oo ka kala socda guutooyinka ugu awoodda badan militariga sida guutada 14 Oktoobar iyo Kumaandoosta, gaar ahaan guutada Gorgor. dalsan oo kabar doonaysa xaaladda xilligan ayay safar ku tagtay degmada Awdheegle. shacabka deegaanka ayaa xilligan dareemaya dowladnimo, balse Awdheegle ayay xilligan sameynaysaa horumar kala duwan. degmada waxaa lagu arkayaa dhismooyin aan hore loo arag, awoodda ugu badan ayaana lagu bixiyay dib u dhiska xarumaha kale ah xarunta dowladda hoose, dugsiga sare ee degmada iyo saldhigga booliiska, walow dad badan ay ku nafwaayeen dhisidda dhismooyinkan quruxda badan. Cabdullaahi Usmaan Abuukar, gudoomiyaha dowladda Koonfur Galbeed ee degmada Awdheegle, dalsan ayuu uga mahadceliyay u kurgalidda warbaahineed ee xaaladda Awdheegle. waxa uuna sheegay in dhismooyinkan ka sokow ay dhowaan filanayaan mashaariic kale oo laga fulinayo degmadan. waxaa kaloo degmada laga fuliyay electricity iyo solar light iyo iskuulkii asagan saas oo kale dayactirkiisu ballaaran uu socdo. insha Allah kala mashaariic kalena waa laga yaabaa inay waqtigu ay bilaabaan. saraakiisha ciidamada ayay dadaalo kala duwan ku bixinayaan difaacidda iyo nabadgelyada degmada. gaashaanle Axmed Maslax Xuseen, taliyaha ururka 66aad guutada 14 Oktoobar ee Awdheegle ka howlgasha, iyo Dhamme Xasan Cali Sanweyne, taliyaha Gorgor ee Awdheegle, ayaa si wada jir ah dalsan ugu sheegay in ay ka go'an tahay sii joogitaanka degmadan. ilaahay ayaa mahad iskale maanta inagu sugay degmada tan Awdheegle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. degmadan runtii waxay ka mid tahay deegaanadii sanad ka hor gacanta cadawga ka baxday. muddadaas sanadka ah waxaa si buuxda gacanta ugu hayay magaalada tan Awdheegle ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya deegaankan ku sugan. runtii degmadani waxay ahayd meel inta badan hagardaamooyinka iyo dhagaraha cadawga ummadda Soomaaliyeed ay ka soo agaasimi jireen, taas oo waxyeelo fara badan ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed intii aysan ka bixin gacanta cadawga. degmada tan Awdheegle waa nabad, amni buuxa ayaa ka jira. isku dayo fara badan oo cadawgu uu soo hamiyey inuu meeshan iyada mar labaad dhibaatooyinkii iyo hagardaamooyinkii oo dadka shacabka Soomaaliyeed u geysan jiray uu ka abaabulo, runtii fashil ay ku soo dhamaatay. taasina waxay ku sugnaatay ilaah galadii iyo dadaal runtii ay muujiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan degmada Awdheegle iyo deegaanada kale ku hareeraysan. waxay u taagan yihiin habeenii maalin, waxay ka mid tahay shacabka qaabka sidii loo difaaci lahaa. runtii xaqiiqdii sida hore loo sheegayba waa la socotaan amniga degmada uu ka jiro iyo isdhexgalka bulshada iyo isagadiya ciidankaba. saa la socotaan degmada mashaariic aad u horumarsan ayaa ka socdo. waxaa ka socotay shaqo waxbarashada sida iskuulaadkii loo furi lahaa, degmadii, saldhiggii, MCH meelihii caafimaadka. dhinaca kale, maadaama dhismo uu ku socdo dhismaha saldhigga booliiska ayaa hadda socota shaqada booliiska, waxaana shaqada wada kusimaha taliyaha booliiska degmada Awdheegle Maxamed Cusmaan Abuukar. waxa uu inooga waramay shaqada booliiska ee degmadan. bismillaahi raxmaani raxiim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة تلياشة إذن شيئا دقمدا أنا أول لقلة وهذا دقمدا أول جدين دم سيء تالو ورمرك كسوعه يو عيدن كيو إذا ما قرن كسيدا عيدن كحوق دلك الصوماليات سيء سكوا هرينين مدة الشعب كيو عيدن ك دقمدا أنا وحي صومرتي وحياة بدن واللي بعتها تذكيبا وحي هستين مدة 5 سنة على قاعدة الصومالية الشباب ayagoo nooc walba ula dagaalamay si walba yeeleen, laakiin waxaa ilaahay mahadiya
waxaa ku guulaystay inay ummaddan si amni ay u seexdaan ay guryahooda si nabad ay ku joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo haddaad maqli jirteen macnaha Soomaaliya ciidan Soomaaliyeed meel ma deganaan karo oo ciidamo Soomaaliya waxaa joogi kara waddanka macnaha taangiga lagu ilaaliyaa hadda waxaa soo taagan degmada Awdheegle adna waad ogtahay maadaama saxaafadii in ciidan Soomaaliya joogo waxaa jooga ciidamo Soomaaliyeed waxaa jooga wiilal Soomaaliyeed ay ka go'an tahay in ay horumariyaan dalkooda ay cadowgana ay ka adkaadaan san hadda ugu adkaana Ibraahim Maxamed Mayow raadiyaha iyo telefishinka Dalsan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.